yiri arinta talada waliga ha u soo noqdo saas darteed baa loo yiri arinta markay inay idinka hoos bixino hays duleynina wabillahi tawfiq جزاه الله خيرا شيخ سؤال شكله waxay tahay takhaatiirta gynecologistiga raga haweenku ay u tagaan lana tacaamulaan sidee looga badbaadi karaa qaar baa qalliin sameeya qaar baa sidoo kale gabdhaha miscarriage-ka markuu ku dhaco soo sifeeya sidee looga badbaadi karaa takhaatiirta noocaas oo u badan ragga bismillahir rahmaanir rahiim asalku waxa weeye haweeneyda muslimadda ah jirkeeda si xaraana laguma taaban karo laguma arki karo hadday daruura timaado oo caafimaad ahaan looga maarmi waayo shaqadaasi waa in la raadiyaa haweeney dumar oo qabata takhasuskeeda leh specialist ah hawshan garanayso taa intii la helayo nin in la aadayo waa xaram taa markii la waayo oo haweeney dumar ah oo shaqadan qaban karta haweeneyda ka umulin karta caafimaadin karta yani waxa weeyaan garanaysa cudurkeeda garanaysa hadii la waayo markaas waxa weeyaan lidaruura walil haaja ya rag loogu teekaraya tilaabooyin farabadan baa marka ka horeeya saas way macna khuraafa inugu jirtana way jirtaa una baahan inaynu ku baraarugno nin meeshaas oo gumba la yiraahdo gumba farcade oo dumarkii Soomaaliyeed aad moodaba inuu isagu caafimaadku u hayo waxaas waa khuraafo waa khuraafo wax jira ma sheekooyin baa la isgaargaarsiiyay hebloon dhali jirin buu ka dhaliyay midaan 10 sano waligeed yaa la hadalin baa u tagtay oo daawooyin buu u qoro hadda uur bay leedahay barnaamij wax ka shaqeeya aad garanaynin baa loo akhriyay markaas safka lagu jiro iyo meeshiisa hadaad maalin macnaha aan kala ha floogaas aan dan kala haweenay meesha joogto dhakhtar abaan u tagay saaqolkiisi intuu buuxsamay banaanka la taagan yahay waligii maalintaas ay ugu horeysay gumbaha waan maqli jiray ajaa'ib badan warnigan muxuu sameeyaa waxa la leeyahay dumarku dhaqtariya war gumba intaynaan u tagin dumar raadiya gumba arintiisu hadambayso faracade arintiisa dambaysiya marka dumar ka soo weydaan waxaad rabtaan marka kadib daruur ahaan ama gumba aada ama gadcada aada ninkaad aadaysaan aada markaas laakiin bal hawsha say u kala horeyso u kala hormariya wax yaroo dumar ba qaban karaan dhaqaatiir dumar oo takhasus leh baa wadankan jooga oo waliba cudurrada dumarka ragga ka yaqaan laana ehelkeedii waa iyaga ehel u ah maadaama uu yahay ay dumar yihiin cudurrada dumarka aad bay uga yaqaanaan ragga uga yaqaan wixii oo dhan marka lagu ma kalsoono waa naag baa leeyahay oo idinka dad isiyastaan dumar ahaantii soo imtixaan ma waa tilaabada koobaad dhaqaatiir dumar raadiya markaad soo weydaan dhaqaatiir dumar oo takhasus kaale markaas rag leedin ogolaanaya hadana ragga marka loo ogolaado ad-daruuratu qadar biqadariha dawaabideedii waxay leedahay qiyaasteeda wabillahi tawfiiq طيب شيخ gabadh baa waxay weydiinaysaa xadda kalaamkee gabadha intay gaarsiin kartaa inay rag la sheekaysato inay kor u dhawaaqdo halkuu gaarsiisan yahay gabadha inay codkeeda hoos u dhigto oo xadda asalku waxa weeye gabadha muslimadda ah codkeeda inay qaado oo ay kor u dhawaaqdo haddii xaaje iyo dan keenaysa ay jirtaay waa loo ogol yahay laakiin hadalka ay la maqlayo dadku maqlayaan dii laga maarmi waayo baa la doonayaa inuu noqdo hadal aan soo jiidanaynin ragga qalbigooda oo cudurku ku jiro falaa taqdacna bilqawl fayatmaca alladhi fi qalbihi marad rag waxaa jira qalbiga ka jiran raggaasi marka waxoogaa kelimad dabacsan iyo hadal yara macaan iyo intaasaaba qalbigooda damac geliya marka hadalka in aan si tabiici ay haweeneedu u hadasho haday ka maarmaydo rag ajnabi ah in la hadasho oo ina hadalka dabcinin oo asaaliibtan qulubta soo jiidata aynan isticmaalin u baa la doonayaa laakiin haday u baahato rag ajnabiyana way la hadli kartaa hadalkeeda qiyaastay kor u qaadaysana kolba qiyaastay u baahan tahay marbay u baahan tahay inay dhawaaqdo marbay u baahan tahay inay u baahnayn laakiin mar walba asturkay kamid tahay in gabadha muslimadii cod hadalkeedu hooseeyo hadii markaasi ayna wax baahiyo keenays ayna jirin wabillahi tawfiiq su'aasha kale gabadh baa waxay leedahay waalidkay baa geeriyooday isagoo aanan isku fiicnayn marka xaalku sidoo noqonaya baarimo u noqon kara hadda markuu geeriyooday kadib waalidkay bismillaahir rahmaanir rahiim jaanis allumisay
waalidku intuu nool yahay dadka waalidkood nool yahay buuna weli jaaniskaasi la yaallaa inta uu nool yahay haddaadan rido ka kasbanin hawshaadu ma sahlana hawl sahlan maaha markuu dhintay kadib